وعليكم السلام عليكم. waxaa farxad inoo ah hortiina doorano wax anaga samaysan oo aan dad kale inoo sameyn doorashada waxaa dhacday 149 ayaa la codeeyay aadan maxamed salaad wuxuu helay 56 maahir jaamac aadan wuxuu helay 93 meeshaas waxaa loo doortay gudoomiyaha suxufiyiinta Soomaaliyeed maahir jaamac aadan xabaliga leeyahay kusoo dhawow aadan maxamed jaamacna runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa hooshii adkeyd iyo dadaalkii badnaa uu galay waxaan u gudagalaynaa haddeertaan xogeeyihii doorashada xogeeyaha maahir jaamac aadan waxaa leenahay kusoo dhawow mikrofoonka جامع عليك سلوك محمد سلام وصحبيها أنا أيوب أنا هل اسكتينا بريكي نسيسا مرضونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي waxaa ii muuqanaya dad weli sheekeynaya hal mar waxaan rabaa drinking nasiisa runtii marka hore waxaan u mahadcelinayaa xirnaaliyaha iyo xubnihii kale markaa halkan joogay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa inta i dooratay iyo inta aan i dooranba aniga ka aadan kismaayo ahaan anoo kismaayo ka soo jeedo Jubbaland ka imid in 61 wareegii koowaad aan keeno wareegii labaadna 56 aan keeno runtii waxay ii tahay guul taariikhi ah guul sideedaba laba qof ma wada sina marna waad guulaysanaysaa marna waa laga guulaysanaa laakiin waxaa farxad ii ah intaan oo saxafiyiin Soomaaliyeed oo jooga in wareegii labaad aan isla soo gaarno iyadoo gobolada Soomaaliya oo dhan dadka ka yimid ay joogaan oo weliba badankood ay la tartamayeen waxaan idin cadeynayaa marka koowaad in marka hore la cafiyo idinkuna aan idin cafiyo waayo saacad ku dhawaad ayaa cadaalad darro aan tabanayay waxay sabab noqotay in dad badan oo saaka aroortii ilaa iyo hadda taagnaa in dartay ay u xayirnaadaan tani waa adduunyo waa laga tegayaa laakiin waxaa wanaagsan in magaca kaga tagto dadka qiimaha badan ee halkan fadhiya waxaan u cadeynayaa in walaalkii maahir jaamac aadan oo aan hal magaalo ka soo wada joogno weliba reer Kismaayo isla nahay Puntland ha iga leexdo shaqaha u tago inaan ku qanacsanahay عبد الله الحسي وهوشن مدور دير سوري عاون عسير جردرا ويحنا عبد الله الحسي حكى عطنا يا سجارة إنه يعرف يوانيك يتيم كيجوا
waxaan u mahad celinayaa ilaahaygii oggolaaday inaan intaan soo gaarsiino fadligiisa ilaahay baan u mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa ergada soomaaliyeed meel kasta ay ka timid waxaan ku faraxsanaha caawa meesha ay joogto walaalkay aadan waxaan leeyahay guulayso waana xurmeeyey ilaahay ha xurmeeyo ilaahay ha xurmeeyo waxba uma qabo waan ku faraxsanahay qalbigiisa wanaagsan aad ugu faraxsanahay walaalaha kalena sidoo kale waan ku wareejinayaa waan ka qabaa waa mahadsan yahay boqolkiiba boqol u mahadsan yahay hortiisana khayr gadaashiisana khayr kuwa dhibana guul allah noogu dhameeyo amina amina guul waad mahadsantihiin gabagabadii markaa runtii wariyaasha soomaaliyeed waxaan rabaa inaan dardaaran u jeedinay maanta saxaafadda soomaaliyeed waxay taagan tahay meeshii ugu wanaagsaneed shalayse waxay taagneed meeshii ugu xumeyd waayo dhammaanteen waxaa halkan la keenay marraskamooni ilaa ras casee wariyaasha kala duwan ee isaga kala yimid waxaa halkan loo wada joogaa runtii waxa ay tahay in aan midowno oo hal far aan noqonno isla ahaantaan aan iska difaacno cid kasta oo wariyaasha dhibaateynaysa runtii waxaan ognahay dad wariyaasha laaya saxafiyiinta caawa waxaan rabaa inaan ka codsado qofka wariyuhu waxaa rabaa inuu noqdo investigative journalist oo ahaado qof ama af Soomaaliyan haddaan ku tarjumo wariyuhu waa inuu ahaadaa mid baaritaan iyo dabagal sameeya waayo maanta haddii nin adiga kulamida ama gabar adiga oo kale la dilo oo wariye ah adigana aad dil suga tahay waxaa loo baahan yahay cidda wariyaha kale ee la dilay dishay inaad ogaatid cidday tahay ma qabiilba ma nimankii xagjirka meeshay kaa jirtaan ogaatid waa muhiim waayo haddii aadan baaritaan sameynin beri adag kugu imaanay anigu runtii intii aan saxaafadda ku jiray muddo ka badan 10 sano waxaan aad isugu dhabarjiban jiray in aan ogaado cadowgayga cidda ay tahay cidda beri idili karta cidda aan ku badbaadayo waayo waxaan ka shaqeeyaa meel halisteedu ay badan tahay badbaadadeeduna ay yar tahay soomaaliya waa meesha ugu khatarta badan saxafiyiinta soomaaliya sidaa daraaddeed waxaan codsanayaa saxafi kasta inuu u diyaar garoobo sidii u baran lahaa sida wax loo baaro oo loo dabagalo waayo dil baa la geysanaya wixii dil lama garanayo aniga caawa idinla hadlaya dadka ii codayna waan garanaya dadka ii codaynana waan garanaya runta ma garanaya waayo maxaa saas u leeyahay dadkaan ii codaynin qaarkood waxaan ku sameynaya dabagal waayo masajaa ii soo dhacay hebel wuu kuu coday hebel kuuma codaynay caawa waan dhaway laakiin xumaana ma qabo marka waxaan ku soo koobayaa marka intaas kaftara iga ahaato marka waxaan ku soo koobayaa saxaafaddeena soomaaliyeed hamidoodo aan noqonno hal far oo keliya aadan hadduu guulaysto iyo maahir hadduu guulaysto shaqadu waa hal ururkana waa musaj musajaa guulaysato aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum